maama Maryan waa maamo Soomaaliyeed oo runtii aad u dhibaataysan ku nool magaalada Boorama. Cali waa wiil ay iyadu dhashay sida ay sheegtay muddo 20 sano ka hor. waxa uu ahaa nin xoogiisa maalo oo aad u shaqaysan jiray balse nasiib darro waxa ku dhacay cudurka waalida. sida ay sheegtay Cali 20 sano ka hor waxa uu ahaa nin aad u shaqaysta oo gaal iyo muslimba ay jeclaayeen waxaana lagu naanaysi jiray Cali Kaare. yacni waxa uu ahaan jiray nin adag oo aad u shaqaysan jiray. si fiican ugu shaqayn jiray nin waxa aad u shaqaysta. shaqaysto Cali Kaare adduunyada soo shaqaysan gaar iyo xamaal ugu jeclaayeen. asuu waagi shaqadimaska ugu dhacay ilmo mas'uul sida ay sheegtay 20 sano ka hor dhibaatadii u bilaabmatay ilaa haatan way ku taagan tahay siday ugu shaqaynaysay ay ugu daalisay ileen waa hooye ayay labadeedii indhood weyday iyadoo ah qof weyn misna ku darsatay indhala'aan ayaa waxa ay wiilkeeda waalan kula nooshahay halkan aad u jeedaan 24 saac halkan ayuu ku xidhan yahay oo iyadana dul fadhida dhibaatadaasi waxa u dheer fikir murugo iyo niyad jab. haddaba walaalaha Soomaaliyeed ee malaayiinta ah ee daafaha dunida ku kala nool haddii uu qof waliba $1 $2 ilaa $5 ama $10 uu soo diro intaasi qof waliba oo inaga mid ah haddii uu iska soo gooyo waxba uma dhimayso balse iyaga wax weyn ayay u tahay. isaga ii shaqayn jiray hay haddana isaga kuu shaqayn jiray isigana waa ka xanuunsaday يقول متطبعا أساس سيدنا عليه بعدين وقت وصعد روحنا وحسين مالك وصعد ثاني بقى كارينا جاب الصيد أواني خوي مدها أواني كسبوا قنشرة كفيرين شري أنا وديري كتوت بدالين أديك أسوء تكان كتير شري أو أنا بصرت بوزن أنا الله تبعت كمان صوم ما حتى عطنا استمرها ومد عطنا يعني إنه طريق جرات العام ما يستوي وحبيبك عاوض الأسد ما haddii uu qof waliba $1 $2 ilaa $5 ama $10 uu soo diro intaasi qof waliba oo inaga mid ah haddii uu iska soo gooyo waxba uma dhimayso balse iyaga wax weyn ayay u tahay waayo waxa lagu jiraa waqtiyo roobku marka uu da'o meeshan ayuu soo buuxsamaa sida ay sheegtay hooyadii marka waxa uu baahan yahay inaan lacag yar iska ururino oo aan u dhisno ugu yaraan hal maqsin oo uu ka dugsado roobka iyo dhaxanta maadaama uu yahay qof waalan oo maryaha iska dhigaya sidoo kale waxa uu baahan yahay in raashin loo dhigo si ay u yaryareystaan ay u cunaan iyo xoogay lacag oo markay u baahdaan dukaanka ay wax yar ugu soo qaataan marka fadlan walaal ka soo qaad waalidkaaga oo dhibaataysan haddii aanad lacag ku caawin karin ku caawi inaad sii sheer garayso oo sii gaarsiiso walaalaha kale ee Soomaaliyeed waxaan doonayaa dawladdaas Soomaaliyeed inay gacan qabtaan aad baad mahadsantiin walaalkiin Mukhtaar oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh